laga ducaystaa oo Ilaahay laga baryaa duufaanta noocan oo kala hay'adihii ku shuqul lahaa in dadka maxasta ah wax loo sameeyo ama loo qabto ama loo dhiso waa 10 goobood laana dawladdu inta wax noqotay dadka shacabkana waxa weeyaan 22 guri iyo deegaanka iyo 22 aayn baybayadii ay dad galiyeen waxaan ka codsanayaa dhammaan cid ay khusayso in hay'adda masiibooyinka afooyinka hay'adda barakacayaasha iyo dhammaan cid kasta oo hay'ado khatar karta in dadkaas degdeg loo soo caawiyo maadaama ay barakaceen waxa kale ka sheegaya waxa la leeyahay wixii banka guri yaalay isna u duwi dadka shalay xalay dibadda fadhiyeen guryaha qaar waxaad moodaa in madaafiic ku dhacday itilargii 8 kiilo kale waxa weeye kol hadaan dhibaatadu ay maalun tahay oo naf ahayn alxamdulillah sidoo kale saraakiisha ciidamada booliiska ayaa sheegay inay jiraan dhaawacyo ka soo gaaray khasaarihii roobkaasi duufaanta lahaa roobkaasi dusaydu ku qaaday shalayto alxamdulillah rabbil caalamiin guryo badan deestaa la idinka sheekeeyay uu ka qaaday annaga laakiin ka xabsi ahaan jingadii nagama qaadin laakiin gidaarkii oo dhan baa wada tilaaxay gurina saqafku ka qaaday laba qofna waa dhaawac mid gacan ka jaban yahay halkan waxyeeladu waa gabadh waliba soo guurto hargeysa ka timina sarkaala oo ciidanka qaranka uu qabo Jamal Gaalaaye marka wax weeyaan xaasku gacanta iyo lugta wax uu ka qabaa xubno ka mid ah shicibka oo aanu la kulanay ayaa iyaguna waxay noo sheegeen khasaaraha iyo siyaabihii kala duwan ee roobkaasi uu kula kulmay inuu roob ku daayay yaad arrinta oo dhex joogto waqti uu roob ku daayay caddo soo kacday in madow saa u go'an wada arrinta guriga geliyay kadib marka aan saa ugu xareeyay ayaa jingadii ay dhufatay jingadii markay saa u dhufatay albaabka keligay aan ka soo kala qaaday jingada gudoomiyaha gobolka Hawd Yaasiin Maxamed sidoo kormeer balaaran ku soo maray dhamaanba gudaha Beelugubadle ayaa u kuurgal dabadii waxa uu baaqa u diray hay'adaha ay khusayso masiibooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliland waxaanu baaqaasi ku yiri waxaan baaq u dirayaa wasaaradaha ay khusayso ee wasaaradahoodii dumeen wasaarad waliba ay daw soo gurmato gobolka gudismayaasha dildilaacay uu waxyeelo roobkii waa guriga madaxtooyada xaruntii jeelka gobolka oo ahayd oo iyaduna deeq dildilaacay qaybtii booliska dhammaan xarumaha dawladuna way dilaaceen waxaan kale oo baaq u dirayaa Faysal gudoomiyaha u qaabilsan aafada qaranka halkan waxa ku tabaalaysan dad badan oo markii horeba dadkeen masaakiintu waxay ku hareen dibadaha magaalooyinka ma soo degin dadkii caynka ahaa xalay duufaan baa yimid oo wuxuu ka